بسم الله الرحمن الرحيم. maanta way tahay 9 Abriil 2025 waa maalin Salaasaa waxa hoolka shirarka golaha deegaanka nooga qabsoomay kalfadhigii 13aad ee golaha deegaanka degmada Gabiley ahna kalfadhigii horeeyay ee muddada aan anagu maayarka ahaa kalfadhigan oo ay golahu ku falanqeeyeen laba qodobka hore oo ahaa warbixin aan golaha ka siiyay muddadii 3 bilood iyo sayidka hay'adda golaha joogay waxyaabihii noo qabsoomay ka dawladda hoose ahaan iyo ka gol ahaanba iyo waxyaabihii caqabadaha ee naga hor yimiday iyo waxyaabaha noo qorshaysan intaas oo golaha la wadaagnay golahuna wixii su'aal qabeen ay naga weydiiyeen wax qodobka labaad oo ahaa xuska maalinta qaran ee 18 May sidii loogu diyaargaroobi lahaa oo golahuna su'aalo badan iska weydiiyay runtii aanu jecelnahay inaanu doorkan u noqdo mid ka duwan doorarkii hore sidii loo xusi jiray aananu jecelnahay runtii inaanu si weyn u weyneyno maalinta qarannimada 18 May runtii waxaan jeclaan halkan inaan bulshada Gabiley uga diro baaq ah in ay si degdeg ah muxuu ahaayay u muujiyaan astaantii qaranka shirkadaha haday meheradaha tahay iyo haday guryaha tahayba in calaamaantii iyo astaantii qaranka lagu muujiyo si aynu muxuu ahaayay ugu diyaar garowno maalinta weyn ee qaran ee nagu soo socotay 18 May oo xukuumaddeeda uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro halkudhigeeduna yahay gacmo wada jira guul lagu hantaa oo aanu jecelnahay astaantaas iyo halkudhigaasina inay ka muuqdaan meel kasta oo astaan u ah qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland aad baad mahadsantihiin